kalsooni wanaagba kalgacayl abuuro kor u qaada nolosha waa habeen taariikhi ah oo farxad badan ay ku dheehan tahay qoyskan oo odayga u yahay Cabdiraxmaan iyo xaaskiisa ayaa dabcan waxay u bilaabanaysaa nolol farxad leh oo cusub kala duwan mid dad badan qaarkood ay aaminsanaayeen in qoyskan ay wajihi karaan waa bilowga nolol farxad ay ku buuxdo maxamed Cabdiraxmaan Mukhtaar iyo Ruqiya Cabdullaahi Maxamed ayaa intii aanay midoobin naawilayay inay ku noolaadaan marka ay isku yimaadaan nolol qurux badan oo ka fog nooc kasta oo dhib ah waxayna doonayeen in arooskooda uu u dhaco sida hablaha iyo wiilasha kale ee isguursanaya hadda waxaan u soconaa dabcan guriga cusub oo ay degi doonaan maxamed Cabdiraxmaan iyo xaaskiisa halkaasi oo ay uga bilaabanayso nolosha inteeda kale halkaan u soconno idin kala tacjabay waxaan nimid halkan oo ah hooygooda cusub محمد يرقيه طبعا هذا واحد بينا بالنسبة نوه مرلة وحنا هذا أي أسعد عن قلب كوضا أو أي كده كنا هوتيل هوتيل عصوب وهذا بيرجع عن طريقة الإنسان هذه كنا حلو أسعد بقول لا يبقى لكم تنقط الحس ولا عاد كان قال وفيري وحنا السودية بس لحد ثلاثة دولة الصومالي أو شيء يعني هلكم كنا وانا يعتني أنت أروس قرن ولا اللي لبضن عروس الدالية أفرض بقول إيش ما كده كنا هوتيل واو كورما قريب وقال بقول بدون سما طبعا سريرتي اللي معنا فدي كله انا بس اي سيده كله طبعا داون كران اي وغاري هي وقيب اي وحرن سida arki karto xagga waa fadhigooda martida iyo ay wixii soo booqda ayay dabcan halkan ay kula shaaheynayaan sidoo kale markii dhalada la fiirsanayna halkan ay waqti ku qaadan doonaan xaggana waa meesha gaar ku ah lamaanahan oo loogu magac daray kuwii qarniga waa maxamed Cabdiraxmaan iyo Ruqiya mid kasta midka kale wuxuu u balan qaaday inuu naftiisa u horeeyo inta ay nool yihiin ay wada ceeshayaan dadka Soomaaliyeed waa maaseen dawladna way maasantahay aasheeda waxaan ku balan qaadayaa in amriga la akrimin inaan nolol fiican ku noolaano dadka Soomaaliyeed aad bay maasan dadaalka lagu garab istaagayo waxa kaalin wanaagsan ka qaatay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaana dawladda Soomaaliya ay ballan qaaday inay aroos qaran u dhigayso lamaanahan Munasar Maxamed Cabdi Dalsan TV Muqdisho